متأملا في قدرة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، موضوع إن شاء الله تعالى تفسير كماشي سي لقليه وشيخه وأباتيه وحاويان ميزان كشرعها ay tahay in dadka la saaro islaamka siday tahay dadka in lagu fiiriyo iyo maanta dad muslimiina miisaankaasi inuu dhinmay oo si kale ay wax u fiirinayaan. islaamku siduu dadka u fiiriyaa? dadkii hore ee salafka ahaa ee asxaabtii iyo dadkii ka dambeeyay ee diintooda ku dhaqmaysay dadka u fiirinayeen. yacni qiimeyntu maxay ahayd qofka lagu qiimeeyaa, laakiin si uu inooga dhinmay qiimeyntaasi oo si kale aan wax ugu aragnay, taasaan insha allahu tacaala aan ka hadli doonaa biidni illaahi tacaala. midda koobaad waxaan hormarinaynaa tusaalayaal ama suurooyin tusinaysa dadka siday hadda wax u eegayaan ama dadka ay qiimaha ka dhigayaani dadka uu yahay iyo ka agtooda. sharcigu laakiin dadkee ayuu qiimeeyaa? kow, tusaalayaasha waxaa ka mid ah innaku hadda waxaan qiimaynaa dadka xoolaha badan, waa la og yahay. waxaan wax ku qiimaynaana waa xoolaha. dowladahana waxaan wax ku qiimaynaa dowladba dowladda ay ugu xawlo badan tahay. markaasaa waxaa la yidhaahaa intaan joogina waxay yidhaahaan qaxooti iyo wixii lamid a inay u aadaan oo iska dhiibaan. inta kalena ay yidhaahaan dowle hebel waa lagu dayan karaa waayo xoolo badan bay haysataa, ama hebel waa lagu dayan karaa xoolo badan buu haystaa. magacyaalba magacyaasha ay ka wanaagsan yihiin markaa loo sameeyo oo la yidhaaho waa dowlad guulaysatay, waa dowlado horumaray, waa dowlado tegay. sax, taa iskuma diidaynaan u malayn. hebel noloshiisa wuu ku guulaystay waayo intaasoo xooluu sameeyey, horumar buu sameeyey. kullina haddaad fiiriso waa wax adduunyadu bas, wax kale kuma jiraan. waxaa ka mid a dadka jilayaasha ah, dadka shaleemooyinka ka shaqeeya, dadka banooniga aad iyo aad u ciyaara ee laacibiinta adduunka laga yidhaaho. waxaad ogtihiin waxaa loo bixiyaa magacyaal aad iyo aad u waaweyn oo islaamka xaggiisa qiimo ku leh, oo la magacaabi jiray, lagu magacaabi jiray dadkii mujaahidiinta ahaa lagu magacaabi jiray. sida waxaa lagu leeyahay batal alcarab, carab batalkeeda ninkii halyeega ahaa. batalku waxaa weeye waa geesiga carbeed. dawri abtaal alcarab, yani waa kuwa banooniga ciyaaro weeyaan. fannaan najma, fannaan najm, yani waaba xidiga fannaanka hebelka la yidhaaho. waxa la dhoodhoobina waxaa weeyaan waa wax sharciga ilaahay aan ku bannaanaynba wuxuu qofkani samaynayaa. waad ka warqabtaan baan u malaynayaa. waxaa ka mid a dadkii in la xifdisiiyo, yani waxyaabaha dhinmay bay ka mid tahay ee khalalka ah, in la xifdisiiyo dadka fanaaniinta ee fanaaniin lagu magacaabay. fanku waxa weeye wax la qurqurxinayo weeye, laakiin waxbaa ka hoos duugan. ilaan wixii xumaabaa waxaa la saarayaa mare, dadkiina qurux looga dhigayaa oo magacyaal koodii la xifdisiiyo. dadka banooniga ciyaara oo magacyaashii dadka la xifdisiiyo oo aad iyo aad
ay dadka yidhaahaan yaa i gaadhsiiya kuwaasoo kale yaa iga dhigaba waxaad ogtihiin dhallinyaradeennu intay fanaaniinta xifdisan tahay magacyaashooda iyo intay banooniga kuwa ciyaaraa ay xifdisan yihiin inuu wax kasta ka badan yahay laga yaabo inayna qulwallaha xifdisnayn waxaa ka mid a iclaamkii oo dhan social mediahii oo dhan oo u sii jeedo ihtimaam badan siinaya qofkan fanka ka shaqaynaya qofka banooniga ka shaqaynaya iyo sida loo xoojinayo waxaa laga sheekaynayaa mararka qaarkeed dharka uu xidho mararka qaarkeed inta saacadood uu ordo ama uu heeso siduu u curiyo ya waxyaabuhu jecel yahay cuntada uu jecel yahay waxaasoo dhan baa lasoo bandhigayaa waad aragteen baan malaynayaa waxaan idiin sheegayaa waa waxaad idinkuba aada u jeedaan waxaa ka mid a in dadkaas looga dhiga dadkii dad lagu daydo oo ay dhallinyaradii ay leeyihiin halka ayaa ay wada gaadhsiiyaan oo uu leeyahay hebel buu ku dayanayaa laxnigiisiibuu sidii u qaadayaa hebluu ku dayanayaa laxnigeediibuu sidii u qaadayaa waxaa ka mid a khalalka jira markuu qofkaasi dhinto ama muslim ha ahaada ama gaal ha ahaadee dadka saasihi wasaa'il aliclaamkii social mediahii ama telefishon ha ahaado ama raadiyo ha ahaado ama facebook ha ahaado ama whatsapp ha ahaado ama imo ha ahaado ama indome twitter wax kastaba dhaho waxaad arkaysaa maalmo idil buu haysanaya isagii un baa laga hadlayaa waxaad mooddaa inuu nabi meesha ku geeriyooday wax ka sokeeya inuu geeriyooday ma moodidba sida looga hadlayo nabi hadduu geeriyoon lahaana saa looma sheegeenba ummadda hadda joogta weeyaan waxaasoo dhani waxaa weeyaan waa khalal jira iyo miisaankii sharciga ahaa oo maanta wax lagu fiirin lahaa oo dhinmay waxaan intaa uga gudbaynaa miisaanka bal sharciga ah ee qofka ay tahay in la saaro ee sharcigeenna wax ku fiiriyaay maxay tahay waa kan waan arki doonaa ilaah wuxuu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum marka uu ka hadlay dadka inuu ilaahay yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay wuxuu ka hadlay uu yidhi dadow waxaan idinka abuurnay mid lab iyo mid radig waa aadam iyo xawa shucuub iyo dadad kale iyo qabaa'ilna waan idinka dhignay inaad isbarataan yaa waxaa la yidhi haddana miisaanka saxda ah ay dadku ilaahay agtoodiisa ku kala fadliga badan yihiin waxaa weeye waa alla ka cabsida intaan bay ku kala fadli badan yihiin ka idinku cabsida badani waa ka ilaahay agtiisa idinku karaamo badan ee idinku dhow waxaa ka mid a axaadiidtu dadka ay khayrka ku sheegtay inuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah ka idinku khayr badan waa dadka qur'aanka bartay ee dadkana sii baraaya macallinku intayn leeg buu hadda qiimo dadka ummadda agteeda ka leeyahay laakiin ilaahay agtiisa waa qofka ugu khayr badan waa dadka qur'aanka bartay dadkana sii baraaya waayo kitaabkii ilaahay buu xifdiyey hadalkii ilaahay buu xifdiyey dadkiina wuu sii baraya ama xifdin ha ahaato uu xifdisiinayo ama macnahooda uu barayo uu u tafsiirinayo ha ahaato waa qof dadkan sii baraya ama tajwiidkii iyo axkaamtii uu barayo ha ahaato ama qira'ooyinkii uu barayo ha ahaato nabigeenna sala allahu calay wasalam basaa inoo sheegay waxaa ka mid a inuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam khayrukum man yurjaa khayruhu wa yu'manu sharuh dadka idinku khayr badan waxaa weeyaan waa qofka khayrkiisa la rajaynayo hebel khayr baa kaa soo gaari doona hadal xun kugu odhan maayo insha allahu tacaala danihii iyo hawlihii wuu kula qaban doonaa marba khayr un baad ka filanaysaa hebel sharba kama filanaysid heble khayr un baad ka filanaysaa sharba kama filanaysid wax inuu shar kaaga yimaadana aamin baabaad ka tahayba hebel maba maanta haddaan u tago dhibaato xaggiisa igamaba imanaysaba carabkiisu yacni waa laga nabadgaliyay iyo gacantiisaba nabigeenu sala alla ly slam wuxuu yihi kaasi waa ugu khayr badan
waxaa kaloo dadka aad u khayr badan oo nabigu ku daray uu yidhi khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli dadka idinku khayr badani waa dadka xaaska iyo ciyaalkiisa u fiican anna xaaskayga iyo ciyaalkayga aad iyo aad baan ugu khayr badnahay buuri okay idinku khayr badan baan ahay marka haddaad aragto qofku inuu reerkiisa u fiican yahay islaantii ayna ka soo dacwoonaynin ilmihii ay isku fiican yihiin salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo cibaadooyinkii iyo quraan aqrintii iyo cibaadada uu ku xidhay waxaa weeyaan waa dadka ugu khayr badan nabiguna wuxuu yidhi anaa reerkiina ugu khayr badan reerkayga waxaa kaluu sheegay nabigu sala allahu alay wasalam inuu yidhi khayrukum islaaman axsanukum akhlaaqan idaa faqihuu ka islaamnimada idinku wanaagsani waa ka dabeecadda idinku wanaagsan laakiin diinta islaamka barashadeeda markay ku daraan buu yidhi nabigu sal ly slam oo markuu isku daro dabeeco wanaagsani iyo diinta islaamka uu fahmay qofkaasi qof loo dhiga male waa kugu khayr badan buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam oo dabeeco wanaaggu waa wax aad iyo aad u wanaagsan weeyaan waana la baran karaa waxyaabaha la baran karay ka mid tahay nabiga sala allahu alayh wasalam baa su-aal loo soo jeediyey oo la yidhi yaa rasuula allahi man akramu nnaas dadka yaa ugu wanaagsan horta akramu nnaasi sida aayaddii baa la rabaa in la waafajiyo dadka qofka ugu wanaagsani waa aya baa la yidhi nabiga sal ly slam markaasaa wuxuu uhi akramu nnaasi nabiyullahi yuusuf ibnu nabiyillaahi yacquub ibnu nabiyillaahi isxaaq ibnu khaliilillaahi ibraahim ninkaasi meel fiican buu tirsaday ma ujeedaa 4 awow isaga iyo 3 awow ninka tirsaday iyo aabbo ninka tirsaday nabiyaal wada tirsaday waxaa ugu wanaagsan buu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam oo ugu nasab fiican oo ugu sharaf badan waa nabiyullaahi yuusuf weeyaan yaa dhalay yacquub nabiyullaahi yacquub yaa dhalay yacquub yaa dhalay nabiyullaahi isxaaq baa dhalay nabiyullaahi isxaaq yaa dhalay nabiyullah khaliilullah ilaahay kuu jeclaa oo qur-aanka uu ku sheegay oo ah ibraahim calayhi salaam markaasaa waxay dhaheen yaa rasuul allah laysa can hada nas'aluka xaggaa kuma warsanayna adiga waxay rabaan moogta qabaa'ilka inuu kala sheego reebel ba reebel ka fiican ka wanaagsan sida inaku aan hawshaas hoose u wadano iyaguna waxay rabaan inuu hawshii hoose u sheego uu yidhaaho reebel ba reebel ka fiican hawshii hoose inuu sheego ee aan isla garanaynay haddaan soomaalinahay laysa can hada nas'aluka bay yidhaheen taa xaggaa kuma warsanayno markaa wuxuu yidhi nabigu sal ly slam facan butuuni alcarabi tas'aluunani carab jilibadeeda miyaadii kale waa weydiinaysaan markaas waxay nacam kuwaa nooga waran markaasaa wuxuu yidhi khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqihuu qaacidaan idin siinayaa wax la yidhaaho reehebelna reehebel bay ka wanaagsan yihiin ma jiraan kuwii jaahiliga ninkii nin rageedka ku ahaa nin rageedka qofkii ku ahaa markuu jaahiliga islaamka hortiisa islaamka markuu soo galana kaasaa khiyaara buu yidhi laakiin waa inuu diinta bartaa markuu diinta barto oo isku islaamnimadiina soo galo ya oo diintiina uu barto kaasaa ugu wanaagsan buu yidhi nabigu sal lla ly slam wax duduub la yidhaahaa ma jiraan qof walbaba dabeecaddiisa iyo akhlaaqiyadiisa yuu wataa diintiisu wataa waa xaggaasuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam xaggaa u dhiga qaacido caama oo uga jawaabay oo qof walba uu iska fiirin karo oo ad odhan karta wallaahi waa haddaan muslim ahay diinta islaamka barashadeeda iyo ku dhaqankeedana aan ku daro qofka ugu wanaagsan baad noqon kartaa waa nabigu sala allahu alay wasalam intuu u sheegay weeyaan waxyaabaha u sheegay waxaa ka mid uu yidhi dadka ugu wanaagsan khayrukum man atcama aطacaam raashinka qofkii qoodiya ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا dadka masaakiinta iyo dadka u roon kaasaa idinku khayr badan buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam islaamka laga hadlayaa gudihiisa laga hadlayaa waxaa kaloo nabigu sal slam khayryada ku sheegay oo la weydiiyey ayu nnaasi khayr yaa u khayr badan wuxuu yidhi man ataala cumruhu wa xasuna camaluhu waxaa idinku khayr badan oo kale dadka cumrigiisu uu dheeraado laakiin camalkiisuna aad u wanaagsan yahay oo cumri dheerar keliya laguma fiicnaado laakiin ilaahay wuxuu siiyey cumri dheer waa jaanis iyo muddo la siiyo
markaasaa wuxuu ku darsaday camal wanaagsanna dadkaasi dadka ugu khayr badan weeyaan buu yidhi nabigu sala alla alay slam intaa markaan sheegnay kadib waxaan uga gudbaynaa siduu u saxay nabigu sala allahu calayh wasalam dadkii lagu soo dhex saaray nabigu sala alla alay slam ee fikradaha sidaa khaladka waxu haysan jiray siduu si saxa ugu saxay oo miisaankooda u hagaajiyey taasaan u tegaynaa insha allahu tacaala waxaa ka mid a inuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam dadka waxyaabaha lagu qiimayn jiray formiga iyo siduu u dhisan yahay iyo wixii lamid kay ahayd wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu alay wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum war ma idiin sheegaa buu yidhi idinku haddaad wejiga iyo quruxda iyo qofku si u dhisan yahay aad fiirsanaysaan ilaahay xaggaa maba eegaba mana qofka ka fiiriyo xagguu ka fiiriyaa xoolo badan buu leeyahayna kama fiiriyo yidhi nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu fiiriyaa buu yidhi quluubtiisuu daalacdaa alla uu fiiriyaa mar kasta qalbigiisu ma wanaagsan yahay mise qalbigiisu waa xun yahay halkaasuu ka fiiriyaa camalkiisu ma wanaagsan yahay oo camal wanaagsan ma hayaa mise ma hayo kaasuu ka fiiriyaa buu yidhi ee idinku xaggaad u dhigaysaan ma ahan saa waa inaad wax u barataan hebel baa hebel ka quruxsan iyo hebel baa hebel ka maal badan iyo waxaas isaw kama shaqeeyo waa quluubtu daalacanaya iyo camalka aad qabanaysaan waa tusaalaha labaad uu nabigu sala allahu calay wasalam sacd ibn abi waqaas oo 10ka jannada loogu bishaareeyey ka mid a oo abtigii ah yaa wuxuu leeyahay wiilkiisa muscab la odhan jiray yaa wuxuu yidhi muscab ibnu sacd ibn abi waqaas baa wuxuu yidhi aabbahay baa wuxuu isu arkay in uu dadkii masaakiinta ka yara sarreeyo oo xoogaa ka baar dheer yahay yuu isu arkay inuu ka yar baar dheer yahay buu isu arkay waayo waa nabiga abtigii oo uu nabigu sal ly slam yidhi yaa itusaa abtigay wakaase abtiyaashii oo kale yaa itusi kara 10ka jannada loogu bishaareeyey uu ka mid yahay qofkii ugu horreeyey oo warangana iyo leeb buu ahaa oo islaamka difaacay nabigu sala allahu alay wasalam waa dadku u jamciyey uu yidhi irmi fidaaka abi wa ummi leebka tuur aabbaha iyo hooyaday baan kugu furanayaa uu yidhi marka wuxuu isu arkay maadaama intaas iyo wax ka badanba uu leeyahay inuu ka yar sarreeyo dadkii masaakiinta ahaa nabigu sala alla alay slam uu u yeedhay isagoo raba inuu adbiyo wuxuu ku yidhi hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum war miyaa laydinku gargaaraa waxa laydinku gargaaraayey miyuu yahay oo laydinku arsaaqo arsaaqadaba ilaahay idinku siiya ilaa kuwa ducafadaa maahan kuwa ducafada ee masaakiinta ee ilaahay baryaya innaka mararka qaarkeed ma isleedihiin ku soomaaliya iska joogoo miskiin ahoo shaqo la'aan ah oo aad waxoogaa yar aad biiliso yay shaqooyinkii iyo hawlo badan kugu sahlanaanayaan ma isleedahay waa kan nabigeena sala alla alay slam baa inoo sheegaya hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum war kuwa tabarta daran unbaaba laydinku arsuqaa oo laydinku gargaaraa buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam waxaa kaluu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qolyo wuxuu arkay qabiilkoodii ku faanaya bal aan fiirina kuwan hadda ka hor baan nin sheekha ka maqlay oo muxaadaro jeedinaya hadda ka hor yaa wuxuu yidhi waxaad soomaaliya ay ku faanaysaani waxaa laga yaabaa buu yidhi inay gaalo ahaayeen iyo inay muslim ahayn ma kala ogeydin buu yidhi odayaasha horead ku faanaysaan inay muslim yihiin iyo inay gaalo yihiin wax ogaaba ma leh nabigu sala allahu calayh wasalam kuwa saasoo kale u faanaya ayuu maqlay bal aan aragna nabigu sal slam si uu edbiyey wuxuu yidhi layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu inamaa hum faxmun min jahannam aw layakununna ahwana cala allahi min aljucli aladi yudahdihu alkhiraa'a bianfih inamaa huwa mu'minun taqiy وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب وحول النبي صلى الله عليه وسلم والله بان قدارتي وإسكا دافيان dad ku faantamaya aabbayaashoodii hore dhintay oo laga yaabo inay yihiin dhuxusha naarta jahannamo dhuxusheeda ay yihiin ama waxay noqonayaan haddii ay iska dhaafi waayaan ilaahay agtiisa waxay kaga qiimo darnaanayaan xaar walwaalka sankiisa ku riixaya xaarka xaar walwaalka waa la yaqaanaa ma dadkii reebaadiyaha hore waa garanaya xaar walwaalku suu u qiimo badan yahay wax badan oo qiimo ma leh marka kii aabihii ku faanayay waa xaar walwaal waxa uu riixayaan oo sanka ku riixayaana
وآبهيسي هوري دنتي إن لجرني إنه حاركة وحديث صحيحة أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سنكي سكوري حي وحا وصمينا يفعل كان وصمينا ينا وأمانت وأماني يا بياشي ويان وإلا المركو حار والوالكو سنكي انتو كو حارك ووضو فعل أي أكشن بو صمينا يا صمين وحا وصمينا أمانت وصمينا يا فعل وقبنا يا حار والوالك سكولو لمديا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الريح يانا حارك الله وضنا وأبيه وحوري أنا إذن شيء يا النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك قياس تويهي إنما هو مؤمن تقي وقف مؤمن إلهي كعب صنايا أو فاجر شقي أما وقف فاسقة أو دول درستي ويانبوري وحان إذن شيء يا سيدنا وكلا فانتمين با الناس كلهم بنو آدم ضمان تتكو حوي آدم بكسفر عمان وآدم من تراب أسل كيس آدم نو حوي وعيد ويان ما لو كلا فانتما هوشو ماشي ما هبوري النبي صلى الله عليه وسلم وحاكلوا إنه قد جاي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أركض دونا حديثك آخر زمان كان أول شيء وحادع دونا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ضد قف بأمانة يان ويقولنا يان ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه حبة خردل من الإيمان ضد وحا إيمان دونا بيقول قف بأمانة يان با ويقولنا يان محاك حوق بدن محاك عقل بدن هبل وهليه ويان محاك دق بدن قلبي سنة وح إيمانه وكشري مشروي النبي صلى الله عليه وسلم وحي إنه قد جاي ضد منافقين إلا أمانه اللي يراه مدح دي باتهاي سلطان كي باتهاي سيد كي باتهاي إلا قوي ده إنه قد جاي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرجعني إذن كانت تصالح كده جاي وحي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد قفك منافقة هكو أرنينا سيد باتاي يعني قف أنصاب أقيم بدنين إلهي أكتسا مدح باتاي وسلطانكي وقبائلكي وهليجي هبا أرنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن يكن سيدا حتى يبقى عضب إنه رهيرك هرجوه وياي ومدح وياي فقد أسخطتم ربكم عز وجل هدو بحتاي مدح إنه وياي هرجوه وياي وأظن كترها أمانته أترى سيد باتاي ربي جيم بات كحنا تسين بولي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بات كحنا إنسان لأنه قف أن مدنين إلا أمانه يا أمانة صوت سيد كل شيء جيسا نبي صلى الله عليه وسلم بينه شيء وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم كسح يقولي ألا أخبركم بشر عباد الله ورما يدين شيئا الدوم ذي إلهي دتك وشر بدل ما يدين شيئا الفضل المستكبر وقفك كان اسكبريه ويا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فضق وحوي قفك قلفسن ولي بد اسكبرين هي قفكاس الدوم ذي إلهي قفك وشر بدل ويا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير عباد الله الدوم ذي إلهي قفك وخير بدل ما يدين شيئا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ها بعض أولانا يسموك سيئنه جوابي الضعيف واك ضعيفك ضعيفك وحاويا نفهانتيسا وقفسك متواضعة حول بدن ما هيستو ضعيف بالي لها المستضعف لنا ضعيف صدو وأن قيم له أركين دتك بيلو آدمي قام مركو دحفر ديو أن قيم له أركين ذو طمرين لما مرأة إسكا باليه إسكا خبا بالي وحاوي من لما مريو أن آد بوقرأ يعني نر أن آدو اللبسنين بالقوضة إلا لما مرة بريقا الحرين شري مركا النبي صلى الله عليه وسلم حوري ذو طمرين لما مرأة أو أن قرح صنين إسكا وطا يعني أن لبسنين ويان هذا يعني أوران كرنا لو أقسم على الله لأبره الله بقسمه هدو إلهي كدارتو إلهي أباري وأسمين يوحو كدارت أقف كاسوي تلك أكتيس يسونا هو اسكا متواضع تلك أكتيس أنا وحبهم أركان يا دار كيسو مقو رحسنا لكن إلهي أكتيس قيمك ليه هدو كدارتو وح إلهي وأسمين يا قف كاس يا قيمة لبوده وقفك وخير بدنا قصة كله نبي صلى الله عليه وسلم وحاصل مرينين آدي آد هيبته له نين آدي آد هيبت أي كم موقته وسود سيء
nabiga sal lla slam saxaabi baa la jooga markaasaa wuxuu yidhi maa taquulu fi hada kan maxaad leedahay markaasaa wuxuu yidhi kan xariyun in khataba an yunkax hadduu ninkani wuxuu xaqiiqo ku yahay hadduu gabadh soo doono waa loo guurin ninka sidan u quruxsan waa nin dhalinyaro oo isku joog oo adduun wa in shafaca an yushfac hadduu ergeeyo meeluu ergeeyana waa laga erge aqbali buu yidhi qofka sidan u dhisan wa in qaala yusmaca hadduu hadal yidhaahna waa la dhegaysan buri si fiican yaa loo dhegaysanayaa buri nabigu iska aamusay haddana mid kale oo iska miskiin oo iska socda yaa soo maray markaasaa wuxuu yidhi wuu la fadhiyaa saxaabigii darsi buu rabaa inuu tuso meel bay fadhiyaan nabiga sal ll slam iyo saxaabigu wuxuu yidhi maa taquulu fi hada kanna maxaad leedahay markaasaa wuxuu yidhi makan hada xariyun in khataba an laa yunkax kan wuxuu yidhi hadduu gabadh doono walla inaan la siinayn buri albaabka laga firanayn sida kii masaajidka intuu yidhi war yaa gabadh iga guursanayo uu mid istaagay uu yidhi aniga uu yidhi masaajidka ciyaarta ka daa waa kaasoo kale walla kan inaan marnaba loo guurinayn buu yidhi hadduu ergeeyana wa in yashfac an laa yushfac hadduu erge galana lagama aqbalayo yidhi wa in qaala an laa yusmac marka uu hadal leeyahayna waa la iska sheekaysan buri lama dhegaysan maayo buri laakiin ma kan ba hadli laa ilaha illa allah dadku saalahayn buri nabigu sal alla alay slam markuu kii ka dhammaaday baa wuxuu yidhi haadaa buu yidhi kaas miskiinka khayrun min mil'i lardi mila hada kan aad u jeedaay wuxuu ka khayr badan yahay buu yidhi boqol dhulka oo dhan wax buuxiyey oo kan oo kale abuu ka khayr badan yahay buri nabigu sal ly slam wuxuu rabaa inuu nabigu sal alla alay slam macaayiirta uu saxo kan miskiinkii kan muggii oo dhulka kan keliyaad sheegaysaaye yuu ka khayr badan yahi ku yidhi nabigu sal ly slam xadiidka kale abu dar iyo qisadan uu warinaya aan u nimaadno wuxuu yidhi abu dar yaa uu nabigu la hadlay wuxuu yidhi yaa abaadar abaadarna dadka masaakiinta buu ku jiray laakiin wuxuu rabaa cashir inuu dhiga nabigu sal ly slam wuxuu ku yidhi ataraa kasrata almaali huwa alghina ma waxaad u aragtaa xoolaha badnida lahay qofku uu haysta inay haninimada tahay ma saasaad u aragtaa qultu nacam baan idhi buuhi xoolo badan inuu haysta haninimaan u arkaa wuxuu yidhi buuhi nabigu haddana wuxuu yidhi afa taraa qilata almaali huwa alfaqr ma waxaad u aragtaa xoolo yar oo la haystaa inay faqiirnimo tahay sidaa miyaad u aragtaa qultu nacam baan idhi buuhi qaala wuxuu yidhi nabigu sal ly slam inama alghinaa ghina alqalb waalfaqru faqru alqalb waxaa weeye haninimadu waa qalbigu qofku ka haniga aba weeyaan buu yidhi sidii kalu u dhigay nabigu sal ly slam faqriguna waa qofku inuu qalbiga ka faqiir yahay maanta dad waxaa jira adduun xoolo oo dhan haysta laakiin jashaca iyo iimaan la-aanta iyo hunguri weynida aad la yaabayso nin baa hadda kahor ii sheekaynaya waxba ma sheegaye nin aan la yaabay xoolaha uu haysto oo lagu sheega adduunkaad ragga ugu sarsareeya inuu yahay yaa wuxuu yidhi wax yaroon kala gaadanaynay yaa nisbadii waxaan ku heshiin kari weynay ya boqolkiiba 82 isaguna boqolkiiba annaguna boqolkiiba 82 rabnaa isaguna boqolkiiba 80 buu rabaa waana dadka ugu taajirsan inta ugu sarrayso ku jira waan ku kala tagnay wuri jashac meesha uu ka gaadhay marka wuxuu yidhi nabigu sal ly slam haninimadu waa qalbiga xaggiisa faqriguna qalbiga xaggiisu ka yimaada qanaaco qofka alla uu siiya iyo haniya buu yidhi nabigu sal ly slam saas ugu sheegay abu dar xadiidkii wuu sii wadaa abu dar wuxuu yidhi uma sa'alanii nabigu weydiiyey buuhi hal tacrifu fulanan can rajulin min quraysh wuxuu yidhi buuhi hebel ma taqaanaa waa nin reer quraysh ka mid a qultu waxaan idhi buuhi nacam waa naqaanaa bal ka warran buuhi ka xaal warran marka wuxuaan idhi buu yidhi idaa sa'ala ucطiya hadduu wax weydiista waa la siinayaa wa idaa xadara hadduu meel yimaadana udkhila waa la soo gelin si fiican baa meel loogu banaynayaa kadib markaan saa idhi buuhi haddana wuxuu weydiiyey qof oo asxaabu sufihi ka mid a nin dadka asxaabu sufaha ka mid a sufada waxaa weeye waa masaajidka nabiga sala alla alay slam meel ka mid ahayd oo dadka masaakiinta iyo fuqaradu ay fadhiisan jireen ee dadka aan lahayn oo lagu biili jiray hebel ka warran buu yidhi buuhi marka dad badan baa meeshaa jooga hebelkee baan idhi buuhi waan garan waayey wuu ii tilmaamay ilaa aan markii dambe ilan dadka faqiiriinta iyo masaakiinta lama yaqaane aan ka gartay buuhi markaasaa waxaan idhi buuhi huwa rajulun miskiinun min ahli sufa waa ninkaad sheegaysaay siduu igu tilmaamay waa rajul miskiin ah oo dadka asxaabu sufaha ka mid a wuxuu yidhi buu nabigu sal ly slam huwa khayrun min tilaaci alardi
min alaakhar dhulka dilaaca waxa weeye waxay dhulku usoo qoraxdu usoo baxdo oo kan oo kale oo buuxiyey isaga ka khayr badan buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam miisaanka ayuu nabigu sala allahu alay wasalam u taxayaa bal waxaa dhacday nabiga sala allahu alay wasalam waqtigii la aasayay shuhadaa uxud oo 70 saxaabi la dilay inuu weydiin jiray nabigu sala allahu alay wasalam oo odhan jiray koodeebaa qur'aanka ugu qaadashada badnaa ugu xifdi badnaa ugu camal badnaa markii mid loo ishaaro oo la yidhaha hebel baa ugu xifdi badnaa wuu ku hormarin jiray xagga laxadka ilaan dhowr baa la isula aasayay laba iyo saddex iyo godka la isula gelinayay asxaabtii 70 baa dhaawacmay 70 way dhimatay way shahiiday cadawgii waa dhow yahay sunnaduna waxaa weeye markii dadku badan ay dhintaan dee in la isku dardaro si dadka dhibaatooyinkii iyo looga juhdigu uga yaraado sidaa darteed baa la isku dardarayay laakiin wuu weydiinayay nabigu sal slam kee qur'aan badan kee qur'aanka ku camal fali jiray buu odhan jiray nabigu sal slam markii la yidhaha hebel baa roonaa kaasuu hormarin jiray nabigu sal slam marka xitaa laxadkii iyo iilkii yaa lagu horumarinayaa oo miisaanka uu nabigu u kala saxaya uu leeyahay ninkana ku habboon inuu ilaahay agtiisa u shafaaco qaado uu ku horeeyo isaga marka isaga xagga iilka lagu horumarinayo إلهي نبي الله إبراهيم مركو كهل يتلمام يوحد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم نبي إبراهيم حالقوا أمانك أمة بؤها بالي سقاب أمة ما يسترنها أمة حالقوا بحيالي أمته داتك وحي لقيه لله هذا وحالقا يابا انت نسلت شوغا إنه مدي دبي عسن يهي مدي وديق بدن يهي مدي وهول كري يهي midba uu wax yahay mid quraanka uu xifdisan yahay inta oo dhan baa nabi ibraahim laga wada helay markaas waxa la ibraahim ummad buu baahaba laakiin qaanitan ilaahay buu yeeshana oo ka dambeeyay xaniifan uu toosna walam yakun min al-mushrikiin shaakiran li an'amihi nicmadii ilaahay siiyeen uu ku shukri jiray oo aad buu mahadin badnaa ijtabaahu wa hadaahu ila siraatin mustaqim maxaa lagu amaanay حول لقمة ماني وحكي لقمة ماني إنه عبادة بدنا نعمة إلهي وكل شكري جري إنه توصنا وحصل هو مانا يا كليه بس وميزان كأيا ليناس حياة سوسا إنه خلد من واحد على أبو سفيان يا وقت أي النبي صلى الله عليه وسلم أي هدنا أي كوكلا جيرين هدنا ذو حال ده هشيس إن على استقال منا مدة صلح الحديبية مركز على كذب يوم مدينة يمدو markaas wuxuu soo maray koox asxaabada kamid oo kamid yahay Salman al-Farisi oo nin weyn oo oday ah oo Arab baan ahayn Suhayb oo isaguna Room ka soo jeeda Bilal oo Xabashi iyo xagaas iyo Soomaaliya ka soo jeeda oo iska masaakiin oo meel iska fadhiya markay arkeen ba waxay yiraahdeen wallahi seefti ilaahi marba haduu ilaan dagaal badan baa dhacay dagaal badan baa dhacay seefti ilaahi meeshi la qaban lahaa si fiican cadawgii waxba ugamayna qabanin bay yiraahdeen marba haduu nool yahay Abu Sufyaan وري ماشي سيدي الربي وحمينا كلا جويني بيدين أبو سفيان با هدون نوليه مركز دم وصول إسلامي دونا أبو سفيان مردم بي لكن فتح مكة سنة كيسي ديداديو وي يصول إسلامي أبو بكر با لا شوقي ماشي مركو يمد وحوم مالين دي إنه ما عندنا إسلام نمي وحي لميدا وربا أبو بكر مركا فكر ديس وحيا هيد كان هدو صول إسلامه قريش ودنا ويصول إسلامي دونتا مركز وحوري أتقولون لشيخ قريش هذا ما قريش ما ضحى هذه بتسا كل ذهين يا هذا الكائنات كتر هان صح ما أبو كوري أبو بكر الصديق يلا شوقي ماشي وأصحاب المساكين تلا شوقي مركي دنبو أبو بكر أتجي نبي صلى الله عليه وسلم وركبوا وشاقي أنت أسوي درسدين هذا الكائن أسوي درسدين سجى أصحابه نبي حكوري صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبتهم ما الغيا بين ترجع سكحنا تشي وأيوه وسلمان الفارسي صهيب الرومي بلال الحبشي رجع هنا كحناجي زي ما لقيا لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله هذا ترجع كحناجي سوي إلهي بتكحناجي سوي رجع بهذا كحناجي سي إلهي وكحناقي وكعرضي وين الله سعته وصلى أبو بكر الصديق ما حد كنت أقاني مساء حظوظ النفسية وحربة إنه سن إلهي كحناجي رجع هدي لك حناجي مركز حوري يا إخوتا لعلي أغضبتكم ولا الله يوم لقيا بائنا إن نكاح ناتي مركزها وحيكون أن يغفر الله لك يا أخي ماذا نكاح ناتين
yakfir allahu laka ya ukhaya lam tuqdibna bay dhaheen ilaahay dembigaaga ha dhaafee walaalkayow nagamaadan xanaajinin su-aalaha la isugu jawaabayo fiiri iyo wanaaggeeda isaguna wuxuu ula yimid iyakuna ay ula yimaadeen nabiga sala alla alay slam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahayd inuu odhan jiray allahuma axyinii miskiinan wa amitnii miskiinan waxshurnii fi zumrati almasaakiin watawafanii miskiinan way soo aroortay nabigu wuxuu odhan jiray sala alla alay slam ilaahayow inoole anigoo miskiina miskiinka wuxuu ka wadaa nabigu sal ly slam anoo mutawaadic iska ah ee inuu faqri dalbanaya ma ahan ilaahayow i oofsa anigoo iska miskiina intaan noolahay ilaahu miskiinan ahaado aan ku dhinto wey innakuna ilaahu xoolo badan nasiibaan leenahay sax aan saa ku dhinto waxshurnii fi zumrati almasaakiin suf nabigu sal ly slam wuxuu dalbanayo wuxuu leeyahay islaahu markii dadka la isa soo xashrinayo waida alwuxuushu xushirat dadka markii la iskeenayo ilaahu aniga waxaad igu soo dhex dartaa bal kuwa masaakiinta kooxdooda igu soo dhex dar waxaa la yidhi ammaan waxaa ugu filnaan lahayd inuu yidhaaho waxshir lmasaakiina fi zumrati way kala duwan tahay mogta carabka xaggiisa inaad tidhaho yaa rabbi ilaahayow bal kuwa wanaagsan igu dhex dariyo inaad tidhaaho ya aniga yaa wanaagsane kuwa kale ee wanaagsan ilaahu igu soo dar waa kala duwan tahay taasaaba ugu filnayd laakiin wuxuu nabigu sal ly slam ka dhigay oo kale markuu ducaysanayay dadka masaakiinta inay ka sarreeyaan oo isagu uu dalbanayo ilaahu nahaleeshii oo nagu dhex dar kuwaas yuu nabigu sal lla ly slam leeyahy waaqico kale nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu damcay inuu diraa ciidan koox bay ahayn ciidankaasi xoog leh kadib laakiin nabigu sal ly slam qur-aankii buu yidhi bal aqriya wuxuu rabaa qof uu madax uga dhiga ciidankaas mid walbaba wixii qur'aan ahaa uu yaqaanay yuu aqriyey nin raggii ugu da'yara ahaa buu nabigu sal ly slam u yimid markaasaa wuxuu yihi hebelow adna bal aqri maxaad haysaa qur'aan suuratu hebel baan hayaa suuratu hebel baan hayaa waana ka ugu da'yar wuxuu ku daray suuratulbaqarana dhakadan ka hayaa oo waan xifdisan tahay suuratulbaqara xitaa waan hayaa wuxuu ku yidhi nabigu sal ly slam idhab fa anta amiiruhum oo ma suuratulbaqara baad haysaaba haa nabigu sal ly slam qiimaha ayuu tusayaa adigaa amiirkii ahe orod buu yihi mas-uulka ka noqow oo hogaami ilaan qofkii suuratulbaqara haya oo carabi ah macnaheedana waa yaqaanaa weeyaan innaka waxaa jira barar badan oo ardaydeenna ahayn suuratulbaqara aan barno ayna macnaheedana ayna hayn innaka agteenna qiimahaas ma ka leeyahay qofka ma hormarinaa markii aan leenahay dadka mas-uul baa laga dhigayaa qofkii suuratulbaqara yuu xifdisan yahay ama qur-aan buu xifdisan yahay ama diintu wax ka yaqaanaa mise mid kale ayuun baan u sacbatunaa ya innakaas garanayna idinkaa ka jawaabaya insha allah tusaale kale nabigu wuxuu yihi sala alla alay slam ina fuqaraءa almuhaajiriina yasbiquuna alagniyaءa yowma alqiyaamati ila aljannati b40 khariifa dadka muhaajiriinta ah fuqara iyo akniyaba way leeyihiin dadka fuqarada ah ee muhaajiriintii waxay ka horeynayaan kuwa qaniyaasha ee xoolo haysta jannada waxay uga horeynayaan 40 sano yay uga horeynayaan xadiid kale waxaa soo aroortay ina fuqaraءa almuhaajiriina yadkhuluuna aljannata qabla agniyaa'ihim bimiqdaari 500 sana tanna wayba ka sii daran tahayba dadka muhaajiriinta ah ee fuqaradiihi akniyada waxay jannada uga horeynayaan 500 oo sano say ku dhacday labada xadiidba nabiga sala alla alay slam waxaa la yidhaha cadadka tiradu waxba macno male waayo badni unbuu uga waday badin unbuu uga waday yacni intaasoo sano ay ka hormarayaan un weeyaan qolyaha qaarkeed waxay yidhaheen maya nabiga waxaa loo sheegay markii hore inay uga horeyn doonaan 40 sano haddana waxaa loo sheegay inay 500 oo sanaba ay ka horeyn doonaan oo jannada uga horeynayaan waxba taa hala yaabin haddii xitaa aan dadka akhniyada aan la cadaabaynin inta boorsooyinkooda airboodka lagu haystay la fatashayo kii aan waxba wadinina gacmaha iska lalaadinayo waa iska tagayba waa saa un oo kale haddaad airboodka timaado adoo meelaha ka yimid oo 10 boorso wata ya waad aragteen in misaal lagu daahinayaa kii gacmihii iska laafinaya waxba wadanin ee iska socday airboodka iska soo galay imisa uu kaasi horeynaya in badan miisaankii baa kugu batay iyo xaggeed ka keentay waxaan iyo waxaa laga dhex raadin kontrabaan baa laga dhex raadinayo hawlo badan baa lagu gelinaya sax oo lagu daahinaya isaga laakiin hawshaasi ma haysato isagoo iska miskiin iska yimid adigu bal horta iska sii socale leeyahay jannada xaggeeda
إلهي أنا قال جنة نبي وحول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره وحول وربضنا نبي صلى الله عليه وسلم قف اسكب أساسا أو بورد اسكاله أو البابده لقو عليو البابده لقى فرينين أو أن dadka agtiisa qiimo badan ka lahayn haduu Ilaahay wax ugu dhaartayna uu baari sameeyay Ilaahay inta markan ka soo baxnay kadib oo nabiga sallallahu alayhi wasallam tawjiihaadkiisana ka soo baxnay bal waxaan arki doonaa dadkii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tarbiyayay ma dabaqeen arrinkaas oo iyagu ma fuliyeen qiimahaas ma qaateen mise sideenoo kale ayay waxay ka dhigeen xibran calaa waraq diinta islaamka inay ku qoran tahay aynaan danna ka lahayn way ku wada yaalaan ogow waxaan idin sheegay dhan kulligeed waa axaadiis saxiixa weeyaan way ku taallaa laakiin naka dhaqankeenu saa muu yahay ma sideenoo bay kitaabta ugu taalay oo ay rufka ugu jirtay mise way dabaqeen bal aan aragna tusaalayaal waxaa jiray saxaabi la oran jiray ibnu maktuum waa saxaabi aan indhalahayn oo nabiga sallallahu alayhi wasallam muadinkiisa isaga iyo bilaal oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waqti yar oo uu ka sii jeesaday canaanta ku dhacday suuratu cabasa taqaanaan cabasa wa tawalla an jaahu al'ama wama yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u adh-dhikra nabigu waxaa jirtay 13 duulimaad iyo safar oo nabigu sallallahu alayhi wasallam Madiina ka baxay isaga iyo mas'uul la wasay dhigay uu sii tukin jiray qaadina uu ahaa وانا ان دلايه يا ابو وايا وحاها حافظ كتاب الله wax badan buu xifdisnaa oo kitaabka Ilaahay kamida saasa lagu hormariyay oo looga hormariyay dad badan oo dhaqaba 13 duulimaad yuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uga tagay Madiina oo dhan oo uu sii xukumayay oo uu sii tukinayay hada ninka qiimihiisa ada arki doona waa kuwa Ilaahay uu leeyahay la yastawil قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وهدتك اللو عذر الداري حق الجهادك والليل ما دام ليس على الأعمى حرج ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وهدتك الليل وي مع ذلك إيمانك سمرك الدنبه والنبي حتى دنتي مركه ودنتي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق لبدي سنه 6 bilood uu hayay oo isaguna uu dhintay waqtigii Umar bin Khattab uu yimid qoliya waxa la isqabtay dawlad aad u xoog badan oo Faris iyo Rum waa iska soo horjeeday Faristu waa dawladii Iran ay matashay oo ilaa Iraq iyo dhulkan oo dhan haysan jiray halkaas la isku galay dagaal aad u xoog badan oo sanadkii 15 hijrada markii laga joogo dhacay oo gaaladana nin la yiraahdo Rustum waa dagaalkii lagu kala baxay uu hogaaminayay مسلمين تنا سعد بن أبي وقاص وهجاميني أمير المؤمنين مركع عمر بن الخطاب بقى يا وحوري كل ما فديه هذا وقت كله عور درب دلاية كل ما فديه دجال كان كقيب قليه أو محط قبنا يسابوا لي هذا وروحي مال دجال مسلمين تلا لو كان لو لسكوا هي كم عرضيه يقادوا وحنا يدين قبنا يعني إن شيء يا بوري عالم كان يدين قاضي يا بوري أنا وحمار كبير ما عرّي مركا ما بعرّي سامبولي إلا أنا إلا سكوت سودو يهيو إلا كلاسي فوق يهيو حبا ما تشيدو يدي مركا وادي قلت قال ما سامبولي عالم كيبان اللي ندين هياي وأنا كإيمان كيف سووا وين يهي نبي صلى الله عليه وسلم قيمها سيؤسمي تدك أمتنا قفكم مركو قيمة لي يهي يا وقيمة الله سميها قيمها لقى مدينه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ودوتين الإسلام كوحو سوق عليه وقت جيلا فرتي مدائن وبغداد ماشن مدائن بالورنشري ميل كمذا إسقى أي عبد الكاس ما دام واللغة دي سنو قرنا يو فارسنا وها إسقى أي مسؤول لو قدر أو مسلمين تقول حكومة حاجة صدان نين عرباتنا ما هيجو نين أو مناها نين دايرنا ما هن لكن قيمة يالبدن بسكوت صدق إسلام بو هالك أسر رأسي لغة دوالينا وقرني سادرتاد بو عمر بن الخطاب مسؤول وقدر وحولن جري دائما ما دام دا عربت واون سدا سوماليد وكلام هي قبيل يوحون بالوفان تمام وقت يسوي حودري شنجري ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم
anigu aabbahay waa islaamka aabba kale melihi markay ree qays iyo ree tamiim iyo aniga ree hebel baan hayo anaa laandheerihiyo hawshaa markay isla galaan isagu wuxuu odhan jiray markii la soo gaadho bal hala istilmaamo markii la odhan jiray adigu yaad u dhalatay adigu yaad u dhalatay adiga yaad u dhalatay isagaa la soo gaadho soo maya abi lislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimin wuu deliishan jiray beydkaas odhan jiray anugu aabbaba melihi aan islaamka ahayn ilaa meeshan wuxuu ka dhashay inay ma joogaan islaamka unbaa aabba iyo buu odhan jiray idinku waxaad doontaan ku faantama bal aan aragno say u dabaqeen waayo ninka u dhiibaya waa cumar bin khataab radi allahu tacala canhu waxaa dhacay nabigu sala allahu alay slam markuu geeriyooday kadib dadkii muslimiinta ahaa markii xoolo la helo abibakr sidiiq wuu cadaaladda wuxuu arkay in la simo oo wixii lasoo helo loo ekeeyo laakiin cumar bin khataab waqtigiisii wuxuu u arkay hadda warkan aad iyo aad u dhegaysta qisadan wuxuu arkay in la kala badiyo oo qof walbaba darajada iyo booska islaamka uu ka degan yahay la dejiyo maxaa dhacay markaa wiilkiisa cabdullaahi bin cumar wuxuu u qoray in baytulmaalka laga siiyo oo biil ahaan loogu qoro 3,000 oo dirham usaama binu zayd waa zayd falama qadaa zaydu minha wataran yaa dhalay waa nin madow baha usaama saa taqaanaa na wuxuu u qoray 4,000 oo lacag oo dirham buu u qoray wiilkiisa oo dacwoonaya yaa yimid ninka nin mas-uula baa wiilkiisan saa u qorayo wiilka kalaan saa u qoraya hadda maanta wiilkiisa oo dacwoonaya baa yimid oo cabdullaahi bin cumar waa ninkaa taqaanaan saxaabiga wuxuu ihi aabbo usaama waxaad u qortay 4,000 anigana waxaad ii qortay 3,000 baad ii qortay welibana waxaan anigaa ka badnaa buu intii dagaal aan galayna ee nabiga sal lla ly slam aan la joogay goobjoog la ahaana anaa ka badnaa buu oo intaan joogay muusan joogin ee maxaad iga badisay yani cadaalad la-aan buu ku tumaysan yahay in isaga iyo wiilkiisii cumar bin khataab wiilkiisii baa dacwoonaya oo usaama isla daayihin isla daana waa nahay buu leeyahay ma kala weynin maxaad iga badisay wuxuu ugu jawaabay nabigu cumar bin khataab wuxuu ugu jawaabay zidtuhu waan u kordhiyey لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وحان أقول كرديي نبي صلى الله عليه وسلم أذيك يا أسامة أيوش على النبي صلى الله عليه وسلم وأكيد شيء النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسامة وش عليه وحولي وكان أبوه وزيد ويان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك أبيه وزيد أنا وكقرآن ككلي لغو شيء ويان فلما قضى زيد منها وطرا ninka loo saxaabi oo magaciisa lagu sheegay ma jiray aan zayd ka ahayn zayd bin xaarisa weeye zayd bin thaabit waxyiga qoray ma aha ha isku qasina zayd bin thaabit waa kii waxyiga qori jiray oo xasan bin thaabit markii isagoo nool buu u gabiyay faraa'idkan aad u yaqaanay oo nabiguna sala alla alay slam uu yidhi afradukum zayd bin thaabit kaa ma ahan kaasi waa zayd bin thaabit waa kii waxyi kaatib alwaxyi weeyaan uu odhan jiray xasan bin thaabit wa min cajabin ihdaa'u tamrin likhaybarin وتعليم زيد بعض علم الفرائض وحكم إذا بقول إن أتريها بقول خيبر وماشى تمر توقبضا خيبر بان هدية وجينا يا تمر وياب بقولي واحد ما دعي كرته وماشى كسب هذا بقدونك وتعليم زيد بعض علم الفرائض زيد بن ثابت بان علم الفرائض كصافر يسمى كبار يعني وياب بقولي وكي حسان بن ثابت حتى مالك ولها رضي الله تعالى عنه فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت wuxuu leeyahay gabay kala dhigdhigi doona xasan bin thaabit markaan anagu dhintay iyo wiilkiisuna gabayaab ah xasan bin thaabit ma soo diyaarin jirin gabayga uu sii dayn jiray wiilkiisuna saas aha zayd bin thaabit markuu kala dhintanaya macaani kala dhigdhigayo buu oo faraa'id iyo diin ilaahay kala dhigdhigayo waa qofka saas oo kale yaani isagoo nool baa waxa la yiraahdaa xasan bin thaabit uu naftiisa u ooyay iyo wiilkiisa iyo zayd bin thaabit intaba kanaan ka hadlayna waa zayd bin xaarisa marka aabihiina aabaha uu ka nabigu sallallahu alayhi wasallam aabaha uu ka jeclaa buuri saasaan u siiyay buuri marka wuxuu sameeyay Umar bin Khattab farada linnaas ala qadri manazilihim sida ay boosaska kala deganaayeen buu ugu farad yeelay iyo qiraa'atihim lilqur'aan quraanka si uu kala yaqaaneen iyo ugu farad yeelay wajihaadihim iyo si uu kala jihaadayeen markii uu yimid Bahrayn xoolo badan oo ka yimidna farada lil muhaajiriin alawwaliin 5,000 وللأنصار 4,000 مهاجرين تورا وحو أفرد يالي وبيت المال كمشاهرة وقدقي
inuu siinaya 5,000 kuwan kalena wuxuu uga dhigay 4,000 buu uga dhigay maadaama iyagu ay iska degan yihiin magaaladoodii ansaar ay yihiin ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 لكن النبي صلى الله عليه وسلم دمر كيسي إلى 12,000 ayuu u qoray maadaama nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka dhintay oo ummahatul muuminiinta hooyooyinkooda yihiin ya laana isagu wuxuu qabay qof walba booskiisa in la dajiyo wuxuu qalahu ijtihaadaad weeyaan uu galay weeyaan qisadan kale aan aragno wuxuu leeyahay Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu muhaajiriintii horeysay markii ay soo galeen meesha la yiraahdo cusbadu waxa weeye waa meel oo quba kamida intuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Madiina soo galin waxa uu imaam u noqon jiray Salim oo mawla Abi Hudayfa mid xoreeyaha adoon u ahaa muhaajiriintii horeysay iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa intii kadib uu nabigu soo galeen isaga us imaam noqon jiray isaga imaam u ahaa waa adoon ogow hadda ma dhac kartaa duwalka muslimka arrinkaas in adoonkaasi uu ka noqdo ama qof madow uu imaam ka noqdo ya ama xaramka uu ka noqdo abadan islaamkana waa la sheeganaya markastana waxaan leenahay war xageena laga haystaa war meesha la naga haysta waa cadahay Abu Bakar baa ku jira Umar baa ku jira Abu Salama ku jira Zayd kan ka hadlayna baa ku jira Amir ibn Rabi'a baa ku jira markaasuu Salim mawla Abi Hudayfa ya imaam uu ahaa waa intay soo hijradeen kadib Quba iyo masaajidkeeda iyo halkeeda isaga uga ahaa Umar ibn al-Khattab waxyaabahu oran jiray waxa kamida أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا ويعني بلالا أبو بكر الصديق وسيد كالنجا إلى سيد قفك الله رنكره أما هو سلطان كالنجا وقفك قيمة بدن وين إسكت حال كأنه ما هن إسكت حال كأنه وواحد لا لجن بسنة عندنا عقل ولا فرنا وين لكن قفك قيمة بدن بسيد لقدك تا وحولي أبو بكر سيدنا وسيد كالنجا بقر كالنجا وأعتق سيدنا سيد كالنجا وحوري محولا بلال اللي نساق حريه وكيف سودك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى تضبط الضم بحريه ومسك مساكينه أو قال عذاب يسوي أو كسوقتي مركز حالي وضو تدقم من ما تسوقت تحتها أو وحين نوقفت أبي حتى قلت قال ما بقحافة أبي بكر الصديق مركز أيدن سودكتي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى إلى هنا بكر هالي نقول دونا وياه قصة كلا أنا رجل نيل إلى حارث بن هشام وريا قريش سهيل بن عمر وحاله ورنتي خطيب قريش خطيب كذا وياه نين أفتهنا يوها والرجل ده جماهيرته والرجل أننا كنا لهم مدحضة وكله خطيب كقريش بالورنتي وارنكي النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه لا قراي ومركي سهيل وصابح يورن جري امركين ودين سالن هذا دغالكي بدرنا غعنتا لو سو دغاي هدنا ولا سي دايو واكو ورن جري عمر بن الخطاب يا رسول الله ما انت سهيل بن عمر هديك غعنتا لو سو دغاي ومركا قال بو يحيى وبدر مركي لاستغالمي تضباكتنكي لا سو قبسداي غالadu ku jiray wuxuu yiri suusan meel dambe ilaa diintu ka soo horjeeday uu soo khudbaynin doolahan ka soo bixiyo ilkaan kuwa foolaha ma garanaysa aan ka soo bixino aan sii deyna markaas maadaama gacanta ku dhignay wuxuu ka wadaa ilaan marka dambe qofku si fiican hadalka uma cadeyn karo hadii dhoolaha foolaha laga soo bixiyo carabkii baa ka soo dhacayo si fiican warka uma cadeynayo marka wuxuu yiri aaban sii deyna Suhayl ibn Amr mar dambe soo islaamka ka soo horjeeda si uusan inaga hor imanin ama uusan khudbo u jeedinin aan dhoolaha foolaha ka soo bixino yiri nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam illa ima amrin buri dadka inaan anagu fool xumeeyo diinta islaamkaygu ima amrin qofka inaan fool xumeeyo dhagaha iyo indhaha iyo ilkaha inaan ka bixiyo ilaahay ima amrin buri musla aan ku sameeyo waxaana laga yaabay buri nabigu sallallahu alayhi wasallam fiiri inuu istaago meel aad iyo aad kaaga farxin doonta maalin maalmaha kamida wayna dhacday Suhayl ibn Amr waxa yiraahdaan qofkii labaad Madiina ilaahay wuxuu ku badbaadiyay markii nabigu uu dhintay dadku ay ridada galeen Abu Bakr Siddiq baa la ku badbaadiyay oo istaagay meel adag istaagay oo yiri wixii zakiye kala qaada islaam wixii ka soo horjeeda sultada uu qabanaya seeftan ka waraayeen ree makaadna waxa lagu badbaadiyay ree makaad islaamkii bay iclaaniyeen inay ka baxaan markay soo galeen waa sanadkii 8 ila Atab ibn Usayd oo nabiga sallallahu alayhi wasallam madax uga dhigay uu dhuuntay markuu arkay dadku inay kacsan yihiin oo diin wixooda ay ku laaban rabaan ilaa 2 sano kaliya islaam yihiin
عتاد بن أسيد والنبي صلى الله عليه وسلم مركو دنت كمسؤولها ودونتي وقرصومه dadkii isgaalnimadii bay ku laaban rabaan waxa istaagay Suhayl ibn Amr khudba yaab leh oo Umar ibn Khattab yiri markii dambe waa maalin ku sheegayay la yiri muslimiinta oo dhan waa maalin ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa khatiibna wuu yahay wuxuu dhageysta khudbadu Abu Bakr Siddiq aqriyo kalu aqri hadaad Muhammad caabudi jireen Muhammad waa dhintay hadaad Ilaahay qofkii caabudi jireen Ilaahay waa nool yahay mana dhiman doon khudba aad cajiib oo baliiq waan arki doonaa khudbooyinkiisa qaar kamid ah hadda arki doonaa wuxuu yiri noqonina buu yiri dadka islaamka dadkii ugu damba galay reer Makaado oo ugu horbaxay doona hadii islaamka laga baxay dadka ugu damba baxay ma noqdo yiri laakiin ahashafan wasu'a kayla tayran jireen ahashafan wasu'a kayla tusaalayaasha carabta ay bixiyo waxa way waa qof wax ku beegaya oo timir xun xashafku waxa leeyahay timirta xunta ku beegaya sida uu kugu beegayna ina fiicnaan oo ka dhimay miisaanka markaas waxay yiraahdeen ahashafan wasu'a kayla محاسو كي دريسا تمرت حشف كاينه دي كيليسو ميزانكينا هذا هاجاتينين wuxuu yiri islaamkii waad ugu dambeyseen buu soo galida hadana ma ugu horbaxaysan war waxa sima jiru yiri balukaadiya hubsada baash aan ugu dambeyn yiri wax ka baxaya ilaahay baa ku badbaadiyay marka ninka Harith ibn Hisham iyo Suhayl ibn Amr iyo Huwaytib ibn Abd al-Uzza iyo Umar ibn al-Khattab waqtigu amiirka habay albaabkiisa yimaadeen waxa kale albaabka yimid Bilal iyo Suhayb iyo rag lamida Abu Sufyan oo la socda saan arki doon dadka u idnay ilaan dad madax waa loo yimaadaa yaa soo baxay wuxuu u idnay albaabkii la wada tagan yahay Bilal iyo Suhayb iyo buu u idnay iyo wixii la midka kuwii kale iskaga tagay Abu Sufyan meesha joogay baa wuxuu yiri lam araka al-yawm maanta oo kale waligay waxa dhacay oo kale ma arkin buu innahu adina li haula'i al-abid adoomadaas oo idnay buu Umar ibn Khattab wa tarakana julusan ala al-bab annahu albaabkii taagana annakina uu naga tagay buu wasaga kana dhaqaajiyay لا يأذن لنا مدحدي با لو idni waayay yani sultaankii iyo hebel ba loo idni waayay weeyaan hebel yaro iska inaku baan naqana yaa la iska idnay waana la garanaya igu waliban Umar ibn Khattab dadku ka dhashay weeyaan marka Suhayl ibn Amr oo meeshii taagnaa oo rag laga tagay muxuu ku jawaabay faqala Suhayl ibn Amr wuxuu ila khatib ahaan jiray wa kana rajulan aaqilan min aaqil badan buu ahaa wuxuu yiri ya ayuha an-nas dadaw kuwa la hadlaya inni wallahi لقد أرى الذي في وجوهكم دادو والله وحان أركا حناق وجهنا كسغن بان أركا فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم هذه حناق سنتهي نفتينا وحناق يري نفتينا وحناق يري دعي القوم ودعيتم داد كان إسلام نبدي الله يري بودي إذن كان والله إذن يري كل مرة هيدين بودي فأسرعوا وأبطأتم ويدك دقين إسلام نبدي إذن كان واضح دين بودي واتكضح دين بودي أما والله ما كنت أرتي وسهيل بن عمر بارنيا لما سبقتم إليه من الفضل أشد عليكم فوتا في بابكم الذي تنافستم فيه وحال إذن كهر مراي أو فضل أو دادكني أي كوبين أو إلهي أجريس أي قارين يا كسي درن بوري أو كوين بوري الباب كان أتكسو أردين دقدق إذن كهر قالين كاو حناقو يري فضلك أي قارين ماشي وليك هاي كتاجان هذا الذي هم بوري الباب يتكالي يسار ورجعني ورك تجو يلو شيء تقولي حاجة إلى هيك تسكت شيء ساس وجو جوابه يعني وحنا كودنا عمر بن الخطاب مركو حسن البصري وكان لي هرن كسحوري لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه إلهي كما دقي يقول أدون إلهي حقي وسود دقي أما إسلام ولا سود دقي أما عبادة ولا سود دقي أدون كذا هي وكذا إسلام مثل قال جماعة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وحاضر مالين ساقف اجتهادي أو صلاة الصبح أصاكعي أو برف كصوم مري أو دذالي أو قرآن كود دذالي أو صوم كود دذالي يقال كائن سلسكم مثل قال جدوان هذا مالين سا أبدا أبدا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما مسلمين المجرمين تو كلام مدة النبي الإلهي ما لكم كيف تحكمون ورسال حكومة إنسانية حما الدون كبوان نقانا قف كي دلالي شق كود دلالي يقف كخلا اسكو حكومة صدعان قف كي مواطن صح النقدي يقف كخلا اسكو سلوا ما قيمة إنكم بوان نقانا مركا وحوري لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه قف أدونه إلهي وسود دقدقي كلام مد ما دقيو قف كضاحي كلام مد ما دقيو
laba qisa keliya ay nooga hadhay oon ku soo dhammaystirayna insha allahu tacaala waxaa dhacay dagaaladii muslimiintu ay qaadayeen nin la yidhaaho qutaybata bnu muslim yaa wuxuu ku duulay turkigu markaa muslim ma ahayn mar dambe ayay soo islaameen waxay yurub bay mataleen oo halkaasay ka miisayeen marka waxaa jiray dadkaas dad wanaagsan oo ku jiray dagaalada markii la galayo lagu yaqaano cibaado innakaba saan idhaha hebel uu inoo duceey oo kale waxaa ku jiray maxamed ibnu waasic nin la yidhaha ciidanka ka mid aha marka dagaalkii waa adkaaday markaasaa wuxuu yidhi ayna maxamed ibnu waasic qutaybata bnu muslim baa odhanaya awey maxamed ibnu waasic buu yidhi markaasaa xaalay huwa daaka fi lmaymana waa xaggaa midigta ah yuu ciidanka kaga jiraa baa la yidhi jaamixun calaa qawsihi leebkiisa iyo warankiisa waa ninkaa ku taagan baa la yidhi xaggaas kaga jira baa la yidhi yubasbisu biisbicihi naxwa asamaa waa xagga cirka waa kaafartiisa u dhaqdhaqaajinaya yaa rabbi noo gargaar yaa rabbi muslimiinta u gargaar waa kale subxaana allah waa ninkaasaa la yidhi markaasaa wuxuu ku jawaabay qutaybata bnu muslim oo ciidanka watay wuxuu ku jawaabay tilka alusbucu fartaas xagga ilaahay loo taagayaa ilaahu noo gargaar axabu ilaya min 100,000 sayfin shahiirin waxaan ka jeclahay buu yidhi 100 seefood oo aad seefaha u xoog badana oo rag kale ay haystaan fartaasaan ka jeclahay buu yidhi wa shaabin tariirin iyo 100 dhallinyaro ah oo xoog ah fartaas korka loo taagaya yaa rabbi ilaahu noo gargaar ilaahu muslimiinta halaagin taas ayaan ka jeclahay buu yidhi 100,000 oo seefood oo dagaalamaysa iyo 100,000 ee dhalinyaro oo ku dagaalamaysa taasaan ka jeclahay waayo waa dadka ilaahay ugu gargaarayo ilaahay ku xidhan waxaan ku soo koobaynaa dowladdii umawiyiinta ee khilaafada ka dambeysay markii ay dhacday xajka markii la joogay yaa waxay nin bay direen xajkii ka mid a oo qayliyaya oo dhawaaqayo xajka dhexdiisa oo ay leeyihiin qofna laa yuftii fi lxaji ilaa cataa ibna abi rabax xajka yuusan fatwo yuusan fulinin ilaa cataa ibna abi rabax maahan cataa ibna abi rabax muxuu yahay cataa ibna abi rabax horta waxaa weeye waa ardayda cabdullaahi bin cabaas ragga uu aad u soo saaray cataa ibna abi rabax baa ka mid a طاووس بن كيسان با كميدا مجاهد بن جبري با كميدا سعيد بن جبير وحجاج بن يوسف ودلا كميدا رقاس ورقي أرضيدي عبد الله بن عباس هيد لكن عطاء بن أبي رواح رقوا مركي تلمامي ينساكو تلمامي بانكو شيغيا هذا ضم الله يسينو ونن قرح صنها لليه هي يوسن قفنا الدين شيغ إن عطاء بن أبي رواح معان فرقاس الدين تايا قيمة بدنيد ننكي تلمامي يوحولي كان عطاء أسودو عطاء مذوبة نين مذوبها ما انت كليه عربنا ده مركي اللي هو مذوذة ومن عبي انجيل دقاس يا أعور ونين إلا أعور كوحوة وقفك إنها كلا شيء يؤها والله با أفطشوا سنكيسو دادك ويكون دقين تاي ماشا داد سنكودو هل كانوا يكون دقين يا تيرا واسكو سمايسان تاي وساس aadu hooseeyo meeshan inta aanu dhan isla hooseyso aftashka waxa la yiraahdaa qofka inta aan sanka iyo sanqaroorka iyo inta dhan ay gudaha isku jirto saa ay hooseyso kamas kaliya ma aan waa sanburuq ma la yiraahdo waxba la yiraahdaa kamastu waa tayar oo mid waxa jirta halkaas uun aftashkaas oo oo sankiisuna saas u eka yani wajigiinu san qurux lahayn baa lagu sheegaya ashallu dhinaca buu qalala ashal waa qofka gacanta قللا أعرج ولقلا ثم عمي مركي دمنا وابا إن دبله وندي بسكو خبصة ده بحاجة سوق تكى مذوبان يا إن دورشة سنبروق يا كعنته قللا لقته كهيتنايو ولا يهي أفكار ما حتى مركز أو أركته أدون كم قروح ما كم وقتها مع ذلك هو الذي كان المفتي ولا هي يسنقف فتوى سوت شيدين وقت ده لسكو قيمين شري دينته والنبي صلى الله عليه وسلم الدولة الأموية ودولة دي كوي شرتي ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأساسي مركز أساس له قيمة مركز ميزان كذا وحى خلاصة كان ما هينه وحوها ديني كي خلت كجا سجنانا وهجاتيي
haddana waxaa loo soo laabtay jaahiligii xaqiiqadu waxaa weeyaan ama soomaali aan ahaano ama muslimiin aan ahaano macaayirtii way isbedeshay tii ma ahaan waana waxaa ilaahayna gargaarna waan ka rabnaa inaan hore soconnana waan rabnaa waxa aan qiimaynayno iyo waxaan wax ka dhigaynana iyo waxaan wax ku fiirinaynana waa isbedelay allah hana gargaaro allah hanoo gargaaro diinta islaamka allah u gargaaro allah ha quweeyo allah hana ilaaliyo kulligana allah hana ilaaliyo macaayirta saxdana allah hana tuso وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين